بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan mar labaad kusoo dhawaada cashar cusub. casharkeenu waxa uu ku saabsanaan doonaa insha allah. waxaan kusoo dhex jirnay loobiskii chapterkii ahaa. waxaan kasoo hadalnay introduction ku saabsan loobiska. sidoo kale waxaan soo qaadanay while loop, do while loop. maanta waxaan qaadan doonaa haddii la yidhaahdo for loop oo ka mid ah loobiska, waana midka u dambeeya. waayo for loopka sidee loo qoraa? for loopku syntaxkan uu leeyahay. marka koowaad waa inaynu sameyno for qorno keywordka, kadib initial valuegii iyo conditionkii waxa la yidhahda incrementigii ama decrementigii waxaba inaynu halkaa wada gelin. conditionkii waayo for looptu waxay kaga duwan tahay kuwa kale. gudaha iyo wax walba labada bracket dhexdooda ayaa waxa gelaya conditionkii, initial valuegii. haddii decrement jiray ama increment waxba maxay gelayaan bracketska dhexdooda. waayo iminka halkan waxaa inoo yaalla koodhkeenii while loop. waayo isaga waxaan rabnaa inuu bedelo wax la yidhaahdo for loop. waayo halkan tegaynaa meel waxaan leenahay waxaan qoraynaa for, kadib waxaan leenahay laba bracket baan furaynaa, kadib curly braces na aan ku xijinayna. waayo halkan aan imaanaynaa marka halkan waxaa inoo gelaya initial valuegii wuu gelayaa. waxaa la yidhaahdo sidoo kale waxaa gelaya conditionkii, sidoo kale increment ama decrement baa gelaya. waxaynu u dhexdhexaysiin doonaa waxa la yidhaahdo semicolon. waayo conditionkii waxaan ujeedaa initial valuegii waa kan. initial valuegan soo qaadanayna waxaan leenahay halkan ahaan, kadib waxaan leenahay semicolon. waxaan soo qaadanaynaa markaa waxa la yidhaahdo conditionkii. waayo sidoo kale conditionkiina gudaha ayuu gelaya counter. waayahay kadib waxaan leenahay semicolon. sidoo kale waxaa gelaya gudaha increment ama decrement keenu marba sameynayno. waxaan leenahay increment baan isticmaali doonaa, waxaan leenahay counter, kadib maxay plus plus. waayo halkan aan imanaynaa, kadib inagoo syntaxka raacayna waxaan rabnaa marka inaan qorno wixii banaanka inaga soo baxay. waxaan leenahay document dot write. waayahay laba bracket baan furaynaa, kadib waxaan leenahay counter. waayo iminka waxaan haysanaa for loop. waayo koodhkan sare waan iska masiixi doonaa. isagu waa maxay? while loop. waayo differencega udhexeeya waad aragtaan. initial valuegii gudaha ayuu gelaya, counterkii ama conditionkii gudaha ayuu gelaya, sidoo kale incrementigiina muxuu gelaya gudaha. wixiiba waxaa lagu wada ururiyey labada bracket dhexdooda. waayo kanaan iska saarno markaa koodhkan uma baahnin, iska delete garayno. waayo inta haddaan save garayno oo aan tagno meeshii, haddaan save garayno oo aan tagno koodhkii meeshii inoo yaalay do while loopkii baan kusii daba qabanay, run garayno. waxaanu haysanaa 0 buu ka bilaabay ilaa intii aanu sheegnay oo ahayd 100.